إلهي المحيدة إنه إليه سودوينها وهذا كسر شبيه قدوميها معمولها مجالنا مع الخشرة إنه برعو شاهد محمد حاشي حتى العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقع الليا وقفته شيوينها نبضيتها إياها كتنتها قبل الوقوع إسلام مرنبات أنا وقع الليا مقعها برشادة يدوينها خير برعو وحانو كسو لويننا مقالة يدا خير برعو مرتين اللوغية حي مانتا gudoomiyaha ururka guddida fulinta xubnaha golaha dhexe hay-adaha dastuuriga kala duwan dhammaan indheergarabtada iyo aqoon-yahanada dhammaan ergooyinka kala duwan ee ka yimid beelaha kala duwan waxaananu leenahay si niyad sami ah si uurfuurnaan ah si laabxaanaana ugu soo dhawaada magaaladayada magaalada burco waa magaaladiinii waxaana filayaa inaad ka arki doontaan arrintaa iyada ah ama soo dhaweynta dareenka bulshadayada oo ka muuqda dhammaantoodba waxaan intaa ku darayaa uu burburiyey awoodda ballaaran ee nooc walba uu ku isticmaalay markaa laazim bulsha wixii marka marti loo noqo laga heli jiray ama lagu yeelan jiray haddii ay garto ama aana kalukaan waa ka cudur daaranayna waxaan nabanahay waan usoo jeedinayaa agooyinka burco ma aha burcadii la yaqaanay waa burco maanta ka hooseysa 120 sanay dhisnayd heerkii ay lagu bilaabay ay maanta ka hooseysa boqolaal oo qof ayaa ka barakacay 1920kii burco qofka joogaa guri ma waayi jirin cunto kama warwari jirin nabadgelyana kama warwari jirin laakiin maanta burco qofka joogaa wuxuu ka warwarayaa hooyiga iyo cuntada iyo dhaqaalaha marka waxaynu odhan kartaa 7 sano gudaheed ayay burco maanta ka hooseysa oo lasoo dhaafay marka haddii saluug aad naga dareentaan ma aha mid sawiraya soo dhaweyn la-aan ama iyadoo aanaanu ku niyad samayn dabeelaha iyo ergooyinka loo yimi laakiin waxaanu leenahay ha u muuqdo annagoo ku cudur daaranayna inuu yahay mid maanta burco la delisa tusaale ahaan ergooyin fara badan oo markii hore aan lagu talageyn baa magaalada yimi waxaa laga yaabaa in ay dhibaatooyin badan oo hoyla-aan oo hula-aan leh oo hoyla-aan leh oo cunto familiga ay ka dhaceen goobtan taasna runtii burco oo unkan ah oo dhaqaalaheeda daakhiliga ama ay taarikhsanaanba noo samayso laakiin waxaanu idin leenahay annagoo idinka raali gelinaynaa haddii ay dhacday hoyla-aan ama hula-aane saaxiibayaal walaalayaal waxaa u sababa dhibaatooyinka maanta dalka guud ahaan gaadhay gaar ahaanna gobollada waqooyi sii gaadha oo silweyne aasaas ku noqda ama saldhig ku sameeya maqsaydka ummadda ee gobollada waqooyi waxaa ilaahay ka rajeenaya inuu noqdo si taariikhiya oo burcaday garan noqon si burca ku waxaana ku rajeenayaa diinaha laga soco iyaga inay sidaas ayaga noogu wadaan kadib warijaan dareenkooda siyaasiga iyo gacansugaanka ay walaalahooda kusoo dhaweynayaan iyagooda ku garab taagan dhammaan mudanayaal iyo marwooyinka waa salaamadii meeshii waa meeshiini waa caligiini isaguna guddoomiyihii guddigii qabanqaabiyey shirkan shaahid canaane islamarkaasna